وإذن سلامي يا إخواني وأخواتي. waxaan rabaa maanta inaan isla faaqidno arrin aad iyo aad u muhiim ah oo lagama maarmaan ah. laga yaaba in badan inay wax ka og yihiin, laakiin inta badan aanan ku baraarugsanayn ayaa rabaa inaan maanta halkan ka sheego. waxaan rajaynayaa in markaad intay soo gaarto hadalkaygan ay wax ka faa'iidaan, kuna cibro qaataan, iskuna dayaan inay wax iska beddelaan. waxay ku saabsantaha arrintaasu waan soo jeedinayaa in carruurta aan la dilin, inaan iskuullada lagu dilin, inaan dugsiyada lagu dilin, in maaragtay waalidka ruuxiisu uusan dilin carruurta oo la isxakameeyo, waxna la barto, lagana fekero ilmaha markay reer yihiin dilka la dilaayo, ama dad waaweyn ay dilaayaan, ama waalidku ay dilaayaan, ama iskuullada iyo dugsiyada lagu dilaayo, inay u geysanayso dhibaato aad iyo aad u weyn oo caafimaad, oo maskaxeed, oo jireed, oo maaragtay ilaa cimrigooda inta ay nool yihiin la socota, una geysata in badan oo ka mida dhibaato aan dawo lahayn. waxaa arkaysaa oo dadku inta badan baaritaan lagu sameeyey, cunuga marka la dilo waxaa gaaraya dhibaato xagga fekerkiisa maskaxeed. waxaa ku dhacaysa dareen xun ayaa ku dhacaya oo cabsi iyo argagax laba mid ayuuna noqonaa markaas. cunugaas inuu noqdo qof la iska addoonsado oo wax walba iska dilaan, oo madaxa u raariciya waxuu arko, oo madluum noqda, iyo qof noqda lekid oo dilaan noqda, oo dadka dila, oo mooryaan noqda, oo waxuu arka dila. walaalayaal, ma bannaana carruurta in la dilo, ma bannaana dadka in la dilo, ma bannaana. xataa marka la dilaayo carruurta xadiis ayaa jira, anugu wax wariya hadda ma xasuusto, laleeyahay carruurta salaada markay 7 sano jiraan fara inay tukadaan, kuna garaaca markay 10 sano gaaraan. laakiin annagu maxaan samaynaa? ma isbeddelkeed cunugio yaraa la dilaa, cunugio 1 sano jiraa la dila, cunugio 2 sano jiraa la dila, cunugio 3 sano jiraa la dila, 5 sano lagu dilaya. qiso dhacdaan rabaa inaan idin sheego. ilmo yar yar ayaan leeyahay. ilmahaas way jecel yihiin waxbarashada, aad ay u jecel yihiin. waxay ku nool yihiin Kenya. waxbarashada aad ay u jecel yihiin. lama dilin, lama taabto, intii tabarteena waa ku dadaalaan. maalin dhaxdaas iskuul ayaa la geeyey. iyaga ayaa markaas nagu wareeriyey, aabba iskuulaan rabnaa, iskuulka maan bilaabno, iskuul ayaa rabnaa. iskuulkii aaday ugu faraxsanaayeen, waa loo diyaariyey, waxoodii wax walba waa loo soo diyaariyey. iskuulkiyaa la geeyey. iskuulkii markii la geeyey way ku faraxsanaayeen, iyagoo ku faraxsan. waxaa dhacday gabadhii faraxsaneed oo ilmihii ku faraxsanaa iskuulkii subax galabtii markii ay guriga imaadeen waa murugaysan yihiin. way murugaysan yihiin, ma faraxsana. maxaa dhacay? aabba iyo hooy, iskuulkaan ma rabno, iskuulkaan ma rabno, ma fiicno. maxaa dhacay? maxaa dhacay? waa la weydiiyey. waxay dhaheen macallimadda ay dishay, macallimadda ay disho buug ayay madaxa igala dhacday. bal waxaas ilaahay ku dhaarsi fiirsa. buug de waa laf, oo culus yahay, wax kastoo noqon karaa. madaxa ayay uga dhufatay. cunugii shoogay ku noqday. cunugaas oo qalbigiisu nadiifka yahay, oo yar, oo 7 sano jirka, waxaan loo geystay dhibaatada weligiis maaragtay kama harayso,
maskaxiyan ayay u gaaraysaa. waxaa laga yaabaa cunugaas waxbarashada dhan inuu ka tago ama iskuula dhanba uu naco, sababtoo ah wuxuu ka aaminaa iskuulka iyo waxbarashadii meesha tago inay tahay sidaan meel lagu ciqaabo. marka waddamadan nada dalkanagii iyo waddamada afrikaanka iyo dunidan hoos oo dhan carruurta way dilayaan. dil aad dilto ilmihii wax kuma baranayaan, aqoonna kuma yeelanayaan. wuxuu carruur weeye, waxa loo sheegayo iyo waxaas waa carruur. qof walba ha xisaabtamo oo ha fiiriyo markuu 5 jirahay 6 jirahay ilaa 10 uu ka hooseeyey siduu u fakeraya. wax walba waxay la ahaayeen filim caadiya la ahaayeen. laakiin haddaad disho sida adiga u fakera cunugan u fakeri maayo. dilkuna waxba uma soo faa'iidinayo, keliya fahankaa ka dhumaya, argagaxa ku dhacaya, shoogaa ku dhacaya. waxay ku noqonaysaa horor in cunugan maskaxda oo ay damage ka gaaro ama dhibaata ay ka gaarto ayaa noqonaysa. adduunyadan hore u martay ilma ma dilaan, iskuulan laguma dilo. dad degan oo ku ixtiraamaya oo wax kugu soo tuuray oo ku ixtiraamaya jidka kaaga leexanaya oo degan ayaa ka soo baxay oo shaqaysanaya oo sharciga iyo nidaamka ilaalinaya. waddamadan hooseeya sida waddankanaga iyo Afrika iyo waddamadan oo carruurta la garaacayo, iskuulka lagu garaacayo, maxaa laga dheefay? dil, dagaal, cunug lekada, mid ku dilaya, mid ku caayaya, mid mooryaana, mid waddada taagan, mid dhibaato u taagan, jidka dhagax kugu tuuraya, meel kasta kugu dhibaataynaya ayaa maaragtay laga faa'iiday. madax adeeg ayaa laga qaadayaa. marka dhaqankaas waa dhaqan aad u xun weeyaan. cilmi baarisyo badanaa la sameeyey, wax walba adduunkan waa la baaray. cunugu maskaxdiisu waa xaashi wax yar weeyaan oo wax ku dhaca ama qofkii dhibaato u geysta ama qofkii wax wanaagsan u geysta ma hilmaamayo weligiis. qof walba wuu ogyahay intuu yaraay qofkii hadal xun ku yiri, qofkii soo dharbaaxay, qofkii wax wanaagsan u sameeyey ma hilmaamayo macnuhu. dadkana ardada iskuullada furanaya ama dugsiyada qur-aanka loo geynayo dad jiran ayaa ka buuxa. ilmihiinna aad ku aaminaysaan ha laga ilaaliyo. waalidka u oggolaanaya dhahaya garaac cunugan ii garaac ha ka fakeraan. qofkan asagu ma dhalin, beerkiisii ma aha, dhibaato ayuu u geysan karaa, meel xun ayuu ku dhufo karaa. qaar waxaan ognahay indhihii laga riday, qaar waxaan ognahay la jebiyey, qaar waxaan ognahay si xun loo galay. ma ahan diinta iyo waxbarashadu cadaab maahan. qofka waa in la jeclaysiiyaa, waa in ciyaalka wixii la jeclaysiiyo waa. annaga dhan waxaa nagu jirta cunfigii. qof walba waa la soo dilay, qof walba adna inuu wax dilow rabaa. haddii adiga lagu soo dilay, adduunka horumaruu gaaray, maskaxdaada kobci, iska tartiibi, macnaha iska tartiibi oo waxyaalaha xun iska bedela. aan iska bedelno. dalkanagi waxa qof walba u dagaalamayo oo qof walba u caytamayo oo qof walba meel uu dhibaato ula taagan yahay oo qof walba mooryaan iyo dagaal iyo loogu jiro, waxaa waaye korriinkii markii lasoo korayay ayaa qof walba dhibaato loo soo geystay. naxariis ma lahan. halloona man lam yarxam sagiirana walam yuwaqir kabiirana falaysa mina. qofkii aan xadiis oo asagana qofkaan u naxariisan kuwa naga noogu yaryar, aanan qadarin oo weyneynin kuwa waaweynka nagama mid aha marka weeye. sababa xadiis oo ah. marka walaalayaal ha la baraarugo, dadka waalidka ah ha baraarugaan. ciyaalka iskuullada lagu dilayo iyo ciyaalka lagu cadaabayo waxbarashada ha laga joojiyo. boqolaal jeer ayaa wax lasoo baray oo lasoo garaacay oo wax maantana way ka tageen, waana ka saaqideen, mana rabaan waana ka tageen. dadka ha la jeclaysiiyo carruurta khayrka, diinta, waxbarashada ha la jeclaysiiyo. hana la iska bedelo akhlaaqda xun, dabeecada xun weeye. waxaana dabeecada xun weeye. ilmaha naga mustaqbalkooda waa u dhimanaynaa, waa u shaqaynaynaa, waa u dadaalaynaa. ha laga fekero. khayr ayaa idiin rajaynaya insha allahu. marka walaalayaal intaas